بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan inay u soo duceeyaan madaxweynaheeni Axmed Maxamuud Silaanyo oo Abu Dhabi aad iyo aad ugu xanuunsaday imaka la moodo inuu ka soo reeynayo dadna Ilaahay waxaanu rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad sareecana oo degdeg ah inuu Ilaahay siiyo waxa laakiin mucjiso ah oo la yaab leh oo reer Abu Dhabi oo dhamay la yaaban yihiin qoyskiisa xaaskiisa inay la joogto la garay xog hayntiisu inuu la joogo la garay wasiirka arrimaha dibadda inuu la joogo la garay laakiin waxa intaas oo wasiir inay maxaahad ugu yimaadaan oo ay Abu Dhabi hudaaladii ugu sareeyay ugu qaalisanaa ay ku galaan ay ku tamashleeyaan inay diyaaradda Fly Dubai ay business class iyo first class ay isku soo wada maxaahad xaadiriyaan lacagta ay sida ugu tamashleynayeen ay ku dhoofayaan waxa weeyaan cashuurtii masaakiinta laga ururiyay islaanta khudradda ku iibinaysa ee maciishadii cirka lagu geeyay ee sixir bararka lagu sameeyay ee caruurteedii waxa la waxay siisay la cashuurtii yareeda laga qaaday waa waxa Abu Dhabi iyo Dubai lagu tamashleeynayo ee hudaalada 7 star-ka ee ugu maxay ahayd qaalisan loogu jiro sabab alla sida loogu jira lama garanayo waxa mucjiso ah oo yaaba bishii 16 June halkan ka baxay Fly Dubai baan raacnay waxa Fly Dubai la socday madaxweynaha Axmed Maxamuud Silaanyo iyo xaaskiisii wasiiradii maaliyadda Samsam iyo inanteedii iyo asxaabtood iyo qoysas kale oo ay wada guurayaan waaya bi fajacarabi wadan ana maxay ahayd intaas oo qof tamashladooda qaadi kareen oo dadkooda uu baqtiyaya oo abaari ku dhacday oo sixir barar hayo oo cudurro maxay ahayd dad ay u dhinteen oo dawooyin ay waayeen ina la keeno inay ka haystaan caruurtoodii iyo qoysaskoodii iyo asxaabtoodii oo business class-kii Fly Dubai la isku wada shubo oo la raaco oo ay waxa soo dhamay ay haddana hudhaala doonayaan oo hudhaala ku degayaan oo haddana la doonayo inay wasiiradina ugu tagaan oo wasiiradina ay hudhaaladii ay galaan oo waxa soo dhamina ay tahay waa cashuurtii masaakiinta laga ururiyay waa nasiib darro inagu habsatay waa nasiib darro in haysa waa axmaqnimo iyo dad aan u naxayn dadkoodii iyo dalkoodii yaa looga tagay Somaliland intaasoo wasiir madaxweynaha naf kuma hayaan oo naf kuma qaban karaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaadka iyo xanuunka baahaya laakiin ay sidii malaka mowdka ay u dul taagnaadaan wax weeyaan waa mid ajiiba oo ummadii oo dhammaan la yaabtay oo qof waliba isweydiinayay war Somaliland yaa looga yimi war Somaliland bal yaa looga yimi intaas oo wasiiro halka iskugu yimi waa mucjiso marka waxa leeyahay reer Somaliland maanta waxa maalin dhow bilaabmaysa kaad bixintii inuu qof waliba uu kaadkiisa qaato oo uu maanta isbedel caafimaad qaba oo Ilaahay aynu weydiisanaynaa inuu caawid uu maxay ahayd raxmaanku ina siiyo isbedel wanaagsan oo maanta fartiina ku dooran kartaan kaadarkiina qaata isbedel doonta xisbi keeni karaya oo idin naxaya oo caruurtiina u naxaya oo mustaqbalkiina u naxaya oo shaqo idin abuuri oo idin ka saari doona maxay ahayd nasiib daradan inagu habsatay fartiina ku doorta kaadkiina qaata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la yaabay wixii halka Faadimo Saciid ka dhureysay oo aan qarannimada iyo islaamnimada iyo dadnimada midnaba aan ku jirin marna waan qoslay
marna waan naxay mar waan qoslo waxaan xasuustay maahmaadii odhan jirtay nin waalani uu ladanyay mooyaane uu miyir qabaa uu miyirsaday lama yidhaa oo uu bogsaday lama yidhaa marna waxaan ka naxay sida inantaasi xishoodkii iyo qarannimadii iyo dadnimadii faadmo waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa madaxweynahaagii marka koowaad waxa weeyaan seedigaa waa eedadaa odaygeedii xidid iyo dhaqannimo iyo muwaadinimo midnaba maanta inaad habaar markaad cay waxba kaga qaadi weydo habaar halkaa ula soo fadhiisataa horta waxaanu leenahay habaar waa dibadda ku odhan mayna isla hel laakiin waxaan leeyahay habaar waa dibadda faadmo qofka ugu mudane xaalkaa bixinaya waana hoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xaal baan ka bixinayaa waxa ay halkaasi ku dhurtay inantaasi markaan intaa ka gudbo tartan baa ina dhex yaala madaxweynuhu maanta ma sharaxna wuxuu la qiimo iyo milga yahay waa madaxweynihii qaranko isagii calanku waa isku darajo wuxuu la milga yahay madaxweynayaashii hore cigaal buu la milgayey cabdiraxmaan buu la mid yahay daahir yaale kaahin buu la mid yahay mudane axmed maxamed siiraanyo waxa weeyaan oday qaran weliba intaa wuxuu dheeriya duurku isagu dalka u galay mudane madaxweyne marinkaaga maaha laakiin waxaan ku leeyahay mujtamaca somalilan nin waalan iyo kamiirka qaba labadaba adaa madaxweyne ayaan odhanayaa waxa intaa ii dheer faadumoy waxa ina dhex yaallaa tartan xisbi baad ka tirsan tahay musharax baad leedahay cabdiraxmaan kursigan madaxtooyada iyo gurigan madaxtooyada eed ku waaltay cay laguma koro wallaahi bilaahi tallaahi cay inaan lagu korin waxa lagu koraa kaambeyn iyo siyaasad hufan ayaa lagu koraa iyo akhlaaqad oo dadka lagu kasbadaa waxaad ka erida mooye waxba saari maysid anigu waxaan garwadeenu ahay muuse biixi cabdi waa musharaxayga isagaan anigu dhisayaa dadka waxaan wax ugu doonayaa cod wanaagsan ixtiraam soo dhoweyn ayaan ugu doonaya waan heli karaynaa inaan anagu cabdiraxmaan cayne laakiin caydiisu waxba muuse ugu heli maayo haddaad wuxu hayso cabdiraxmaan car boqol qof codkood faadumay u keen anigu waxaan muuse biixi cabdi u hayaa burca hawdkeeda ilaa laaskeel xaafadda gacan libaax codkiisu uu dherarayo anaa ka wakiilo waan u hayaa bal adigu waxaad u hayso halkaa keen ilaan cod baa la doonaya cay lama doonaye madaxweyne waxay faaduma dul istaagtay wasiiradii halkaa marayey samsam cabdi aadan waa wasiiradii ugu waxqabadka badnayd anigu faadumo waan uga aqoon badanahay dowladaha iyadu siyaasaddu way ku fashilantay waxay moodaysaa NGO-yadii maaha siyaasaddu sidaa samsam cabdi aadan waa wasiiradii ugu waxqabadka badnayd ee soo marta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale oo dhanba samsam cabdi aadan halkay maanta joogto ee aad faadumay u waalatay 1 second haddaad fadhiisan lahayd duni somalilan wadan la yidhaahba mu jireeno dunidoo dhan madaxa isla geli lahayn waa wasiirad degan aqoon leh karti leh sharaf leh waa bimacni kelima inan xishooto weeyaan oo aan weligeedna cabdiraxmaanna caayin kuwa ku ag joogana caayin adan xumana laga sheegan samsam cabdi aadan waxaan leeyahay fariinta aan madaxweynaha u diray baan kuu diraya waxaan leeyahay kaa waalan iyo kamiirka qabada adigaa u wasiira walaal raalli ka ahaw waxa aan doonayaa inaan halkan kaga faa'iidaysto labada gobol ee maanta ay ka bilaabmayso dhowaan ka bilaabmayso ilaa bisha 7deeda 8deeda ay ka bilaabmayso diiwaangelintii kaar qaadashadu waxaan ugu baaqayaa inay kaararka codbixinta qaataan waxaan ugu baaqayaa si ay mar labaad weliba fariin gaara u tirayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo muuse biixi cabdi ee labada gobol inay dhammaantood u feejignaadaan kaar qaadashada